بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. madaxweynaha Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo safarkiisii wali ku maraya magaalada Berbera ayaa shacbi ku dhaqan magaalada Berbera oo salaada Jimcaha maanta kala qayb galay isagii xubno kamid ah golihiisa wasiirada Sheekh Saleebaan Siciid Cali oo ah isku-duwaha wasaaradda diinta iyo qaafta gobolka Saaxil oo isagu khudbadaasi ka hadlay ayaa waxa uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay sida loogu baahan yahay in la ilaashiyo nabadgelyada guud ee dalka Soomaaliland ayaa waxa uu yiri يعني حتى كنا بنتكلم مدحتويين كودي وصولي أي كتير يعني كنا بنتكلم وأنت عرفت لي إن وزيرنا المتصورة مشاة مليحة مراحلها كان شيء يعني يا رب الفريق وحشرات وحد نعمل إلى أن ذكروا بكلام إن مدحتويين من الصعود النوبيين الإمام المساجد يقولوا كريم يا رب الغفرين أبني كان الله يملأني حيدر المحب إننا نرسل بشرى الله تبارك وتعالى السلام عليك ورحمة الله وبركاته جل دولة المسلمين النساء وعرب يدورون ما يحتاجنا النساء ولا الشرعية سيد ما يحتاجنا صارنا إلى حق الإلهية ما يحتاجنا حق إلى صار إلى الإلهية حق الشعب هو صار إننا واحد نصار حق أي كل إنه تعالى وكرم الله وأكثر عنه إلى إنه مركب أيضا كبر باني وأيضا كبر بانا بيأتل وبيأت كبر بانا والسعر يشعر ولكن الشرع كل جاي رولدا يكرر ضمنت رولدا يكرر ضمنت يتكلمت يإلهنا إلهي وحده ويديننا تبارك وتعالى ويحولنا الله ينور ويسبحك سنة الله ينور إذا بدأ النهيك كان الله ينور الله ينور شعب كاننا الله ينور إلهي تبارك وتعالى من يسوع السوين إلهي تبارك وتعالى ذكرنا الله سنة الله ينور. markii ay soo dhamaatay salaada Jimcaha ayaa madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo dibadda u soo baxay waxa faafka hore masaajidka kaga hor yimid shacweyne aad u tiro badan oo si ballaaran u soo dhaweeyay madaxweynaha Silaanyo inuu kala qayb galo salaada Jimcaha dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera intaas kadib ayaa telefishinka caalamiga Home Cable TV oo dadweynaha ku sugan magaalada Berbera ee ka qayb gala salaada Jimcaha ee masaajidka madaxweynaha Silaanyo kula tukanayay shacbiga ku dhaqan magaalada Berbera halkaas kula hadlay ayaa sheegay in soo dhaweynayaan in madaxweynuhu maanta kala qayb galo salaada Jimcaha iyo waliba salaada darafta waa wax lagu faani karo aad u qaalay weeyaan maanta Jimcaha madaxweynihii baa nagula tukaday masaajidka nagula tukaday taa masaajidka nagula tukanayna haddaan gobolka Saaxil waxaan u aragnaa inay tahay nabadgelyada tii ugu taabsaneed oo ay muujinayso waxa jaararkeena ka jira ee aan madaxweynaha Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdigan hogaaminayo salaada Jimcaha oo madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu dadweynahiisa ku nool magaalada Berbera kala qayb galay ayaa waxay tusaale wanaagsan u tahay sida ay u jirto nabadgelyo buuxda oo ka jirta deegaanada Soomaaliland Cabdirashiid Cayinte Home Cable TV magaalada Berbera.